xog sirdoon oo la helay ayaa sheegaysa in 5 gaari oo ismiidaamin lala damacsan yahay ay soo galeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isla markaana dadka loogu baaqay inay feejignaadaan. shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan xarunta xalan ee magaalada Muqdisho ayaa la wadaagay fariimo amni si ay u yareeyaan dhaqdhaqaaqooda gaarka. meelaha sida gaarka farta loogu fiiqay inay ka dhici karaan qaraxyadan ayaa waxaa ka mid ah xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka, xarunta gobolka Banaadir, godka Jilacow, Hotel Dorbin, Hotel Jazeera, Hotel Iswael, Ageesgoyska Dabka, Xeebta Liido iyo gobo kale ayaa laga yaabaa inay ka dhacaan qaraxyadan. hay'adaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa feejignaan gaar ah sameynaya si ay uga hortagaan qaraxyadan looga digay inay ka dhici karaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sirdoonka ajaanibta ee ka howlgala xirada xalan ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 5 bisha Sebtembar oo maanta ah ilaa 8 bisha Sebtembar Muqdisho al-shabaab ay ka geysan karaan qaraxyo iyagoona ka digay qaraxyadaasi. Samir Cabdirasaaq Umar, wararka muuqaal baahiyaha Hanti TV magaalada caasimadda Muqdisho.